بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام يا دمان خياتي ميلود بدي على سواتا ومركلة إيه channel كيني فيديو دي مقالكي كوزا تشيليس كاسو أحتحناها أنا كبرنا ومكان أسيادة نوعية كريتوان أتي أنا ربنا العكس سمينو سوق يوم معلوم والبي إن أجمرة ونبا هانتا خبرت إيو أقانو يشستي أيوغا فايدستان أديغو أوكوري جاليس كفردية إيزيا أدو شقين كرتو حدي كلي أكيلي شاقان إيو بذات cashiradayna caawa waxay noqon doonaan laba ku saabsan muuqaalku wuxuu noqon doonaa laba qodob waxaa la odhan doonaa indicators ama wax indicators la yidhaahdo la isticmaali doono cashirkeeni u dambeeya waxaynu baranay wax loo yaqaano candlesticks waxa weeye waa candlekii caadigii sida uu u shaqeeyo iyo candle in lagu shaqeeyo ayaynu baranay candlestick wuxuu yeelan doonaa marka cashirada dambe dabeecado u gaara iyaga in lagu fahmo waxaa la yidhaahdaa wejiyo ayuu leeyahay wejiyadaasaad gaar u fahmi doontaa aad baran doontaa jihada markuu bedelanayno waxaad ogaan doontaa candlestick behaviorskiisa caawa topigeena wuxuu ku saabsanaan doonaa waxa loo yaqaano indicators sidoo kalena waxaynu dhigan doonaa wax loo yaqaano support iyo resistance so maxay kala yihiin indicators iyo support iyo resistance waxay kala yihiin aynu isla ogaano indicatorsku waa kuwa suuqa habeenkii dhowdaan idiin sheegay candleka kuwa ansixin doona ama aad raaci doonto si aad u raacdo dabeecadda iyo wejigiisa meesha uu u jihaynayo suuqu kuwaasoo noqon doona tools ka mid ah toolka la dhex yaala platformka ama brokerkaaga kaasoo ah key option ku tarir karin doono haddii aynu ka tarir karino lacagaha loo yaqaano binary and digital options oo ah lacaga limited time and fixed profit aad ku tarir karinayso oo cashiradeenii hore aynu soo qaaday haddaba maxay yihiin indicators waxay yihiin kuwa go'aamin doono in suuqan kor tegayo in hoos tegayo iyagoonan go'aaminin laakiin la socdo suuqu wajahadiisa xagga ugu bedelanaya iyo dabeecadda uu leeyahay indicators aynu isla ogaano waxay yihiin anigoo idin tusaya sida indicatorska loo soo dhexgeliyo traderkaaga ama platformkaaga adigoo isticmaalaya accountkaagii aad hore u samaysay waxaad galaysaa accountkaaga markaad gasho waxaa kusoo baxaya platformkii ama brokerkii IQ option lacagihiisii adigoo lacag walba kala soo bixi karaa meeshaas yare pluska ay ku qoran tahay xaggaas pluska ay ku qoran tahay adigoo lacagtaada kala soo bixi kara lacagaha available hadda ah marka binary and digital la yidhaahdana waa shantaas lacagood kuwa hadhow furmi doonayna waa suuqyadan oo ah ilaa beri kuwa soo furmi doono saacadaha soo socda furmaya hadda laakiin lacagihii aynu sheegnay aynu isleeyahay inta lacagooda furan mostly waxaan isticmaalaa ama favorite-kayga lacagta euro USD so euro USD aynu soo furno euro USD soo weynay waxaad aragtaa candlestick iyo waxaan idiin sheegay wajahooyinkii iyo suuqii meelaha laga raacay suuqaasi inuu buy gali doono haddana hadda resistance wax la yiraahdo yar kalkalaya laakiin buy iyo sell wax la yiraahdo karaa minutkii hal candle baa soconaya maadaama aan anigu qiyaasay in hal candle minutkii socdo 5 second la yiraahdo candle baa socon kara anigoo halkan ku xisaabinaya calaa candle inay 5 second socdaan halkan 15 second baan dooran karaa inuu candlekii 15 second socdo 30 second baan dooran karaa mostly laakiin waxaan ku tiriyaa minute because of was stable okay stable saying inta aan ognahay mostly suuqa isbedelaya so 1 minute baa geysanaysaa indicatorskan idiin sheegay sida soo geliya indicatorskan idiin sheegay waxaan ku soo gelinayaa anigoo isticmaalaya calaamadda yar sidaas ee indicatorska ay ku qoran tahay dhinaca bidix ee computerka dhinacaaga bidix eeg hoos waata ku taala halka mouse-kaygu hayo indicators markaan galo popular baan galayaa popular markaan galo waan soconayaa MACD oo kale isticmaalaya sida indicatorska loo soo gashado fadlan daawada haddii aad sida indicators loo soo gashado daawan kari weydo waxaa kugu adkaanaysa hadhow inaad la qabsato suuqa so indicatorska gasho hadhow tool indicatorkan ku siiyo si aad u gali karto size-ka aad u bedelan karto so indicatorka isticmaalaya waa MACD hadda waxaan ku jiiday aan idinku soo celiyo waxaan ku jiiday indicatorska popular baan ku jiiday kadib waxaan ku jiiday MACD halkaa mouse-kaygu u dhexeeya fractal iyo momentum waxa la yidhaahdo labada indicator labada kala yidhaahdo MACD soo geli muxuu ku soo baxay qiyaasa buu ku yidhi MACD-gaaga wuxuu hadda ku qorayaa fast period-ko 12 slow period-ko 26 signal period-ka ama big period-ko signal-ka ku bixinayo 9 sax baynu odhanaynaa apply hadda waxaasan bedel ku odhan doonaa ay bedelan kartaa applied maxaa hoosta idinka soo baxay hadda wax la dabeecada suuqii baa soo baxay so suuqa afkiisa halkuu jeedinaya ilaa laba candle baad arkaysaa xaggan baad ka ogaan kartaa indicatorkaasi hadda muxuu sheegay wuxuu sheegayaa inuu kacas u taagan yahay suuqa sell la yiraahdo ka buluugana uu buy u taagan yahay marka buy maadaama uu taagan yahay
kacasna uu taagan yahay sell xaggan yar waxaad arkaysaa in halkaa ay isku hayaan labadii indicator marka uu kacas kor maro suuqaasi sell buu u badanayaa because of sell buu yahay hoos buu la soo degayaa afka maadaama uu kii buluugiibu dhulka la galaya waa sida laba mas oo is haysta markuu midi kor u soo baxoba ka kale hadduu kor maro suuqaasi is dhaafaya suuqa wijhada u bedelanaya dhinaca kale ayuuna u bedelanaya suuqa sidaas oo kale hadda inuu imika sell kusoo noqdo laga yaabo laakiin inuu sell kusoo noqdo haddana waxaad sii eegaysaa endka ama afka uu indicatorkan ku dhamaanayo afkii waa kan afka buluugii baa soo taagtaagaya afka soo maadaama buluugu taagtaagaya waxaase samaysmaya candle green ma aragtaa hadda maadaama uu samaynayo candle green hadduu kacasi uu hoos u dhaadhaco isagoo kaa buluuga hayo hoos u dhaadhaco ama kaa buluuga hoos usii noqdo wuxuu suuqaasi noqonayaa sell suuqu noqonayaa kor buu iskala imanayaa hoos waa labadii dibiyo lagu sheegay dibigii iyo butigii labadii xayawaan oo hoos iyo kor isku celcelinaya suuqan oo kale for example way iscelcelinayaan hadda meel ay u socdaan hadda kaa sell buu galay waad aragtaa haddana kii buluugii hoos buu afka u taagay waxaad arkaysaa soo indicatorkii inuu yahay hoos wuxuu sii socdaa halkaa markuu jooga hadda kor inuu soo noqdo waxaa ka xiga candlekii kale buluugiiba afka inuu kor usoo celiyo doono because of kii casaab doonaya inuu gaadho kacasi uu gaadho waa inuu afka halkaa gaadhaa uu kor u dhaafa hadduu dhaafi kari waayo suuqa candleku sell buu isku celin doonaa lacagteedaasina sell bay geli doontaa hadda kor buu socdaa laakiin suuqa waa la celinaya haddaan position kaa idhaahdo sell buu isku celiya rabaa baydii awood uu ku gaadhuu leeyahay candlekaasi laga yaabo inuu bay dhammaysan waayo oo uu ku dhammaado dhex bartan oo ah candleku inuu half ku dhammaan karo inuu sii wadan karona waxaa macquul u ah inuu candleku socon karo oo halkaas aad kasii wadi karto so hadda maxaad aragtaa candleka bodigiisu inuu halkaa ku joogo laakiin uu intaas dhex soo socdo hoos inuu noqdo ayuu rabaa maadaama uu suuqii hoos uu u badan yahay waxaan isla aragnaa meesha iyadaa in indicatorku kaa maamuli doono waxa loo yaqaano buyga iyo sellka iyo suuqa jihada uu u jeedo okay indicator kalaan kusoo duldaraynaa soo fur qaybta indicatorada popular soo fur waxaad soo furtaa indicatorka la idhaahdo awesome oscillator soo fur qaybtaas awesome oscillator soo raaci 34 xaggana 4 ka dhig maxaan ku yidhi slow period iyo fast period buu leeyahay 4 iyo 34 ka dhig okay de maxaad isna aragtaa suuqii suuq la mid oo candlekii laakiin hoosta maxaad aragtaa inuu dhinaca baa u badan yahay sell markuu hoos tagano waa kan sell buu bilaabaya haddana baa yar buu hoosta ka bilaabay waxaan iminkaan kuu sheegayo wejiga bodiga iyo indicatorku waa isku mid maxayna isku mid yihiin kuu sheegaya waxaa kuu xagga iyo meeshan aan hadda sala gareeyey iyo kan meeshaan sala gareeyey waa isku dabeecad so isku baro mar walba indicatorku inuu isku dhinac yahay xaggan iyo meesha aan hadda iminka marinayo iyo qaybta kasii hooseysaba oo isna ah awesome oscillator saddexdaasna waa isku mid marka maxaa lagu tusay halkaa buy buu ka galay maadaama indicatorkii buy sheegay kan kalena buy sheegay haddana halkaasuu sell ka galay halkaasuu sell ka galay indicatorka muxuu noo sheegay inuu sell galayay kii casaa uu kor maray kii kale buluugiina hoos u sii socday so hadda labadii suuq kii buluugii baa afka soo celinaya maadaama ka buluuga afka soo celinayo waxaad raaci doontaa waxa loo yaqaano buy buu weli ku jiraa iscelcelinaya laakiin buy ayuu ku jiraa suuqaasi buy inuu ka baxona maxaa uu ku diidayaa wuxuu ku diidayaa maxaan ku dhahdaa iscelcelinaya labadii candle so waxaynu duubnay ama aynu hadda ogaanay in indicatorku waqti socdo okay waxaad isku daydaa timeka periodka halkan aad ka bedelanaysaa aad galayso lacagta ama investmentkaaga $10 halkan ka dooro lacagtaada $1 baad gali kartaa waxaad gali kartaa $2 2.5 1.5 aduu $1 baa ugu yar waxa kale waad sii wadan kartaa adigoo ganacsigaaga iyo waxyaabahaagii kale iskaga jira oo maaragtay eeganaya isha ku haya practice ku jira xaggan oo kale 100 isku oranaya 100 maadaama weli candlekaaga kuu socda weli afku taagaya laakiin inaan galo maxaa ii diidaya waxa ii diidaya waxa la odhaahdaa dhow resistance iyo support baa jira oo casharkeedii ku dhigayo waxaasaa ii diidaya candleka positionka ka galayayna waa inaan ilaashado candleka hadda ma gali karo inuu kor usii socdo inuu hoos soo soconayo because of positionka ku jooga so in labada dhinac kugu dhaqaaqaa dhici karta so markaasoo kale ma trade karaynaysa okay aynu kasoo noqono waxaynu baran doonaa haddaba cashirka ah waa maxay support ama chart analysis
وما support وما resistance عشر كم حال ودقيقة ما كدقيقة إنه نبرنا هبينك محل هذا صوص عذا لكن introduction بها تبي كسر support وجدار resistance وحلل هذا تريتون support وجدار كهوست السوق مركو جارو وكسونه support وحل إلى سوقا ما أنت هنكون support كيحي هنكوسه resistance ما كتوا وجدار سعودية سوقا نمكا حاجة مركو شوقي support فوق حاجة مركو شوقي فوق علي support فوق علي إنه support كلام حاكتوسيا وحاكتوسيا horizontal لما هو حينين حتى هلكا support فوق علي حاجة support كلو كعلي حاجة support كلو كعلي support كل حاجة كعلي أوكي support إيه وحويان لاين سوقي ووسوس وسعده وكان نقطنا وجدار لقى علينا يويان support كامر كا وكان نقطة كهرو كان نقطي كان نقطي حدنا وصوص عندنا meelahan uu ka noqday support waa line-ka hoose uu ka noqonayo line-kaas oo hadana ka noqday line-kaas uu ka noqday hadana line-kaas uu ka noqday markii dambe inta yar buu ka noqday halka yar buu ka noqday siduu uga noqday waxa uu uga noqday sidan line-ka suuqani mar hoos ma wada haysanay hadda aan wax break out laga qabto wuxuu haysanayaa position hadda halka waa support sell baa ku dhamaado suuqa markuu halka ku dhamaado kii keereeyay ka sareeyo ka kale uu ka dhamaado ka sareeyo muxuu badanyay buy uu badanyay maanta buy-ga lagu macaashiyo seed ku ogaatay support-kiisii baa hoos intuu ka bilaabmo ayuu kor u badan yahay mar walba korka uu tagaya ayaa ka badan support-ka markuu kor tagana uu ka fiican yahay ama uu ka awood badan yahay markuu hoos joogo so waxaas oo dhan maxaa la rabaa support baa la rabaa okay support muxuu yahay kale support wuxuu yahay line-kaasi halkaas uu ka soo bilaabmay sell intaas uu sell ku soo jiray halkaas uu ka noqday waa support hadana inta yar buu tagay hoos buu noqday waa support hoos markuu socdana support-kii kale halkaas uu ka hadana suuqii sidan buu socdaa kor hoos support waa gidaarka uu hoos soo taabto hadana kor buu yar noqon hadana uu soo dhaadhiciyo gidaar kale soo celino kii hore aan ahayn hadana uu ka soo yar noqon gidaarkii hore aan ahayn uu soo galay uu jabsan baa haduu doono hoos buu maanta u sii dhaadhici markuu hoosta dhamaysto kor baad adigu raacsan support baad sugaysaa mar walba waxaad sugaysaa line hoose inuu suuqu gaaro markuu halkan gaaro ayaad eeganaysaa halkan soo gaaray suuqayga imika haddaan doonayo inaan maanta buy ama sell ku analyze gareeyo suuqa lagu yiri sell ku analyze gareeyo sell maxaa lagu yiri xaggaasaa support so maxaad gashay buy inta yar baad buy gashay waad iska sugaysaa hal minute buu candle-kii soconayaa time-kaad gali kartaana waa hal minute candle hal minute ka dooro buy gal waad ku macaashaysaa okay so maxaan eeganayaa support-kaan eeganayaa support-ku waa kaan idiin sheegay ee gidaarada hoosta ka bilaabmaya maxay kaloo yihiin support-ku waxay yihiin waa wax ku analyze gareyn kara suuqan ama waxa loo yaqaano marketska ama candlestickska waxaan ku analyze gareynay support-kii marka halkan uu ka noqday kor buu u siisa macnaha u sii kacay kor maadaama uu kacay support-ku waa kaa weeyaan resistance baynu eegaynaa from down to up weeyaan support-ku xagga imika suuqii muxuu sameeyay hoos buu baxay kor buu baxaya waa gidaarkii support-ku soo taabtay support-ku soo taabtay maxaad ku ogaanaysaa xagga support buu taabtay xaggan support buu taabtay xagga yar buu dhicada support ku taabtay marketku wuxuu sii wado support-ku waa halkan xaggaas hadana u sii baxay okay so hadama in short marka lagu yiraahdo resistance wax la yiraahdaa jiraysa support baan idin soo dhigay resistance faantan resistance-ku muxuu yahay resistance waa line-kiisii lidka ku ahaa waa gidaarka sare uu ka soo noqdo suuqa marketku hadduu support ka soo noqdo markan kor buu ka soo noqonayaa gidaarka resistance baa dhahay gidaar waa kubadda dhulka ku jiiday maxaa soo celinaya maanta kubadda dhulka ku jiiday iyo gidaar baa soo celinaya dhagtaas sida uu hayso dhulkeed ka noqonaysa haddaan xoog ugu jiido telefoonka ama waxa soo celinaya support waa gidaarka suuqa sidaas oo kale u soo celinaya waa suuqa maanta oo dhan kuma jiray lacagaha la isdhaafsanaya so support iyo resistance maxaynu kala faa'iidnay breakable resource wax la yiraahdo support iyo resistance waa one hadda waxaan idin wadayaa waa macnaha shaashada aan kala wadaagayo waa iyadoo candle ah waxaan jeedaa chart ah waa kan support waxaan cas waa support kaasi waa support kaasi waa support halkaas support ku ka galay halkaas support ku ka galay inta yar support ku jiro halka markuu gaadhana breakable buu galay uu jabsaday wuxuu jabsaday resistance buu jabsaday resistance maxaa niyo waa line kan lidkiisa oo ah support kor support
markuu halkaa joogay muxuu sameeyey support haddana supportka kale inuu meelaha agtiisa ahaada ayay ahayd laakiin uu jabsaday markuu jabsado kor buu suuqaasi haynaya waad sugaysaa saasuu sii jabsaday ma aragtaa halkaas baa jabsaday suuqa waad sugaysaa dhinaca waxaad u raacaysaa breakout-ka waxa la yidhaahdo ama breakable suuqa breakable-ka kor waad u raaci kartaa laakiin in badan kor uguma jiri kartid because of hoos ku soo noqon karaa any moment laakiin adiga waxa weeyaan support iyo resistance inaad kala raacdo gidaar buu kasoo noqonaya waa iska sugaysaa gidaarkii markuu gaadho aad oranaysaa alla ilaahay waa support waa resistance ee hoos u raac markuu hoos tagana waa support ee kor buu noqonaya ee kor u raac hadduu supportka sii haysto waa breakout waxa la yidhahdo iska wuu soo noqonayaa suuqaas haddii aad breakout-ka barato waxa weeyaan waad fahmi kartaa haddii aad barato support iyo resistance waad fahmi kartaa so support iyo resistance maxay kala yihiin is support and resistance waa kaa yalowga supportna waa kan cas so maxaa idiin sheegay support iyo resistance what are they maxay ku celceshada waxa weeyaan support iyo resistance waa sidee line ugu sawirataa resistance line sidee support ugu sawirataa maxaan ku dhahdaa waxa loo yaqaano icon waan idiin sheegay hadda suuqaasi muxuu galay buy buu ku jiri resistance baa soo celiyay muxuu halkaa ka galay ee support buu ka galay support maadaama waxaan u jeedaa resistance buu ka galay muxuu u socdaa wuxuu socdaa sell inuu socdo maxaad ku xaqiijin indicatorkii muxuu sheegay inuu afka hoos usoo sii daynayo in yar baan sugayaa ama waxa weeyaan indicatoradeedaan hubinayaa kuwaasoo xaqiijinaya inuu hoos u socdo halkaasoo kale signal wax la yidhahdo aad ka eegi waxaad eegi doontaa signalkaasi inuu markaa buy suuqa u badnaa iyo inuu sell u badnaa ayaad ka ilaalin doontaa maxaad ku ilaalinaysaa support iyo resistance maxay yihiin support iyo resistance aan ku fahmaa suuqa imika sell ayaan u galayay laakiinse afka labada candle ismay saarin hadday afka isa saaraan waxaad guarantee ka dhigtay suuqaaga in la yiraahdo waa support iyo in la yiraahdo waa resistance hadda maxaan ku jirnaa wax la yiraahdo loss maadaama uu candle-ka afka ku jirin laakiin basic aan doonaya ama waxa doonaya inaad fahanto waxa weeye support iyo resistance maxay yihiin maxay sameeyeen hadda support ku sameeyay wuxuu sameeyay support-ka inuu sameeyo waxa xaggan yar buu resistance iska celiyay wali suuqii ma stable ma hoos buu candle-kaasi inuu bilaabo rabaa candle-kan casaanka hadduu afka saaro candle-ka suuqaasi shuur hoos inuu celiyo ay isku taray halka candle-eeda hesha ayaa kugu filnaanaya markaa support-ka joogto xagga markaan joogay ayaa lacagteeda gashan karayay because of daqiiqad kaliya way ugu filantahay inuu candle soo socdo intaas oo dhan tan ku xigta waad geli karaysa because of kan kale kuguma bilaabmayo waxaad ilaashanaysaa support iyo resistance waxay yihiin support iyo resistance haddaad ogaan doonto aad ogaan kari weydo inaad analyze karaysa suuqa kugu adkaanaysa so support-ka waxaan yidhi waa kan resistance supportna waa resistance support okay halka waxaa dhacdaa wuxuu ku jiraa maxaan ku dhahdaa resistance waxa is celcelinaya isagaa sababta waxa so halkan sell baan ka galay intaasuu hoos u socday sell indicator-kuna hoos u baxsadayba indicator-kii muxuu sheegay inuu baxsadayba kii buluugii iyo hoos u dhacdhacay so kii casaabaa dhulka markaa sarreeya awoodiisa kale so maxaa halkaa ka muuqda sell badan baa ka muuqda okay waxaa fahantay baan u malaynayaa sell iyo buy waxa ay yihiin so hadda waxaan sugayaa inaan sell galo afku saaray waad aragtaa afka maadaama uu saaray xaggaasuu ninka celiya rabaa so xaggaasaan sell ka galayaa aan eego marka sell waxaan galayaa xagga baan ka galayaa sell okay aan eego oo wuxuu yidhi your request has timed out waqtigaa kaa dhacay buu yidhi new option day marka new option time-kaagaan set garaysanayaa oo daqiiqad ka dhigaya ama 2 daqiiqo markaan 2 daqiiqo ka dhigo halkaasuu iska celcelinaya suuqa laakiin afkiibu weli taagayayo ma soo gaarin markaasoo kale suuqaas muxuu u badan yahay baad aragtaa waa baxday halkaasuunbaa ugu dambeysay resistance ilaa xadkan uu gaadho so muxuu doonayaa inuu meeshii meel lamida gaadho suu meeshii meel lamida u gaadho ma aha inaan celceliye waan sugayaa buy baan u galayaa suuqan maadaama kor sii haysto candle-adii also musculator-ku waxay caddaynayaan inuu buy gali karo xaggan 3 candle oo sell ah inuu galay 3 candle waa kan uu yar celceliyay kan yar noqdayna waa kan so buy buu weli sii galayaa si aan buy u galo inaan galo waxaa imika iga joojinaya candle-kaa iga hor bilaabmay xaggan hoosta markuu ka bilaabmay inaan galaan ka jecelahay sababtoo guusheedan guarantee ka dhigaya so support and resistance inaad fahanto cashirka soo socda waxaan tusay example iyo suuqyo ku saabsan waxyaabo ku saabsan
IQ option-ka. So hadda maxaan galayaa $10 baan rabaa inaan galo. Waan sugayaa $10 waxaan sugayaa in maaragtay aan helo signal buy ah. Hoos buu isku celcelinayaa suuqii isma soo taaban weli hadday istaabtaan kan waxa badanaya selka. Marka hadda sel ku taabto waxa batay sel baa markaa ku macaashis. Laakiin maxaa hadda ii diidaya inaan selka buy galo? Candle baa iga hor bilaabmay, ku kala iga hor bilaabmay, buy buu sii haysanayaa. Oo anigii nii sheego resistance uga soo noqon karo ma garan karno. Hadduu resistance aadan garanayna suuqa ka wareeg, ku kale u wareeg because of time you have. Waxa kaliya in suuqan idinkula soo dardaaray 5 qodob oo ah patience iyo waxyaabaha loo yaqaano inaad sugi karto samir yeelan karto iyo inaad yeelan karto waxa loo yaqaano discipline oo suuqan aad kaga maxayso haddaad sida khamaar u kala tiraahdo waa halis hadda suuqu is celcelinaya inuu is celceliyo inaan sugaa ka horeysa because of hal trade baan khasaaray mar rabo inaan mar labaad khasaaro markaan khasaaray maxaan samaynayaa lacagteedaan set garaynayaa waxaan sugayaa point saxa oon trade-kaa ku galiyo so waxaan filayaa videoga dambe inaan kusoo dari karo doono tradingka macnaha tradeska exampleska laakiin videoga waxaan rajeynayaa inaad fahantay support iyo resistance sidoo kale inaad fahantay waxa loo yaqaano maxaan ku raadayay indicatorka intaa idiin soo sheegay ku eeg gal sell buy gal dabeecadihiisa dadaal ku celcesho baro ku dadaal iguna soo warcel wixii su'aala maxaan ku raadayay iskuna day inaad mar walba practice ku samayn karto waxaan ku rajeynayaa happy trading insha allah examples iyo tusaalayaashii waxay ku insha allah assalaamu calaykum